daawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda Radio Baraarug Media wala been ugu soo gudbina waxa ka dhacay geega Soomaalida iyo caalamka saaxiibayaal inaad subscribe ku dhufto si la gareeyo lana sii wadaaga saaxiibadiina kale dawladda Israa'iil oo dhexdhexaadinaysa dawladaha dagaalku ka dhex socda ee Ukraine iyo Russia maamulka dekedaha ugu weyn dalka Ukraine ee Odessa ayaa sheegay in ciidamada badda ee Ruushka ee ku sugan badda madow ay gantaalo la dhaceen dhismooyin la degan yahay oo ku yaala duleedka magaalada waa markii ugu horeysay ee dhismooyinka halkaasi la weeraro afhayeen u hadlay maamulka militariga gobolka Ukraine ayaa sheegay in wax qasaare ah oo aan halka laga soo sheegin duqa magaalada ayaa booqday deegaanka ciidamada Ruushka ay gadoomiyeen ee Odessa balse waxaa jooga ciidamo dhanka galbeed magaalada ugu soo galaya iyaga oo dhulka soo maraya dowladda Ruushka ayaa xanibtay isticmaalka Facebook iyo Instagram-ka ee baraha bulshada ku wada xidhiidho maxkamad ku taala Moscow ayaa xukumisay in dhaqdhaqaaqayaasha isticmaalka baraha ee bulshadu isticmaasho Instagram-ka iyo Facebook ay xagjir yihiin iyada oo howlgaladooda laga xanibay gudaha dalka Ruushka sida ay wararku sheegayaan xafiiska dacwad oogaha guud ee Ruushka ayaa sheegay in waxyaabo xagjir ah oo lagu daabacay baraha bulshadu ay ku wada xidhiidho ee Facebook iyo Instagram-ka isagoo oo tixraacaya baaqyada lagu eedeeyay in rabshadaha ka dhanka ah muwaadiniinta Ruushka oo ay ku jiraan ciidamada militariga ee jooga dalka Ukraine dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in lacag dhan 5 milyan oo dollarka Mareykanka ay siin doonto cidii keenta xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay Jihad Sarwan Mustafa oo loo yaqaan Ahmed Gurey oo la rumaysan yahay inuu xubin sare ka yahay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya Mustafa waxaa la rumaysan yahay inuu yahay muwaadinka ugu darajada sareeya ee u dhashay dalka Mareykanka ee dibadda uga soo dagaalamay urur argagixiso ah ayuu yiri xeer ilaaliyaha Mareykanka Robert Brewer maamulka argagixisada Al-Shabaab waxa ay khatar ku tahay amniga qaranka Mareykanka xulafadooda caalamiga ah iyo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan waxa uu Mustafa kamid yahay dadka loogu baadigoobis badan yahay isla markaana ku jira liiska FBI-da magaalada Hargeysa waxaan uga soo baxay aniga reerkaygii wadankii aan u dhashay ee aan ku dhashay ee aan ku dhaqmay ee aan ku dhistay ee aan ka ahaa nin culimo ah oo ku hawlan dacwadda islaamka iyo tarbiyada islaamka dacwadii iyo tarbiyadii islaamka aan waday oo ay ku timi carqalad xoogan oo kaga timi nidaamka ka jira goobta iyo dhulkii islaamka ahaa ab iyo awooba 100% islaamka ku soo dhaqmayay si cad loogu faafinayo diimaha gaalnimada ee kiristaamaynta iyo dhaqan bedel akhlaaqdii lagu samaynayo iyo fawaaxish taasoo markaad ka hadashana adiga aad u cadilan tahay oo dib mudanayso cidda wadana lagu ilaalinayo nidaam cadaaladeed iyo garsoor ayaa ka jira Somaliland maxaa nidaamkaas u aadi weyday oo u dacwoon weyday garsoorka ka jira Somaliland isaga laftiisa hay'adihiisa sirdoonkiisa baarayaashiisa xeerlayaashiisa xabsiyada wax lagu xidho iyo maxkamadihiisu nidaamkani dulmiga uu sameeyaa waa meelaha uu ka fulo ee asalka u ah runtiina annagu waxaanu noqonay diin iyo naf iyo ehelba dhibanayaasha u dhiban isaga nidaamkan garsoor laftiisa waayahay hadda xaggee joogtaa oo ay gala hadlaysaa hadda waxaan joogaa meel ka mid ah dalkaygii Soomaaliya gaar ahaanna ku suntan qaybaha wilaayaadka islaamka ay gacanta ku hayaan wararku waxay sheegayaan oo na soo gaaray inaad joogto gobolka Jubbada Dhexe maxaa ka jira waxa weeyaan dhammaan waxaan dhex mushaaxaya oo dhex socdaan ku qulayaama u kala gudbaya wilaayaadka 12 ah ee gacanta ay ku hayaan حركة شباب المجاهدين شيخ آذن ما وحا أتمد إناد الشباب كل إحنا ولاتد مسا وحا أتمد إناد كمد نقطة الشباب
labaduba way jiraan marka hore inaan diinteyda iyo cirdigayga iyo naftayda aan u biday inay halkani markaa u nabadgelyo badan tahay aniga iyo dadka muslimiinta ila midaba isla markaana hawsha halkan ka socota ay tahay hawl caam ah ummadda islaamka ka wada dhexaysa adduunka guud ahaan gaar ahaan geeska Afrika mas'uuliyad diineed oo diinta iyo dalka iyo dadka lagu difaacay inay halkan ka jirto oo xaq ah wixii igala gudboon awoodayda ee aan ka qaban karo aqoontayda iyo cilmigayga iyo kartidaan oo isticmaalayana waan kala qayb qaadanaya haddii Ilaahay idmo waxaa nagu maqaal ah in aad soo doonatay inaad qabato hoggaanka al-shabaab maxaa ka jira arrintaasi waa mala awaal niyooyinka lama ala awaalayo anigu cidna lama wadaagin erey noocaas oo kala ah hadday dadku laabtayda waxa ka guuxaya mala awaalayaan xaq uma laha oo laabtayda waxa ku jira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala keligii ayaa og laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa wixii mas'uuliyad diineed ay qabsada ee laasim ku noqda anoo diyaar u ah oo Ilaahay ugu dhawaanaya laakiin daa'iman ma jecli anigu sacaamad iyo madaxnimo had iyo gooraale banaanka la isugu soo taago mana jecli dabiici ahaan yaa kula socda oo iminka Hargeysa kaala soo baxay waxay la socdaa ehelkaygii waxay la socdaa awlaadeydii waxa weeyaan aan doonayo iyaga laftooda diin iyo cirdi ahaan bayna la badbaadada ka sokow sida muuqata hadda al-shabaab inaad ka mid noqotid ayaa ii sheegtay maxaa ayagana u soo gelinaysaa hawshaas aad iminka ku soo biirtay waxaan u keenayaa inay ku hoos noolaadaan shareecada islaamka iyo maxaakiimta lagu xukumayo kitaabka iyo sunnada ee ka fog dulmiga iyo eexda kuna dhaqmaya cadaaladda iyo garsoorka qur'aanka iyo sunnada inay harkaa hoos harsadaan waxay kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa gacanta ku haya ilaahoy ayaa abuuray allah subxaanahu wa tacaala arsaaqdooda haya asashooda ilaahay baa haya laakiin qodob kale madaxweyne muhiima oo muddooyinkii ugu dambeysay isna soo baxay magaalada Laascaanood dad Soomaaliya jooga maxaan ku dhahdaa sanadkii hore laga soo raray dhinacyo kala duwan baa ka hadlay hay'adaha caalamiga qaarkood baa ka hadlay gudaha baa laga hadlay arrinkaa go'aankeeda haddaan ku weydiiyo adaa waddankii ugu sarreeya madaxweynaha maxaa lagu saleeyey dee adeega waa sheegaye horta marwasada Soomaaliya iyo Soomaaliya kala wada leeyihiin Soomaaliya ma laba dal baa mise dal qura fiid maxaa ruuxsanta dhaxwan ka taagan meel ka aamusa marka waxa weeye anagu waxaan taaganahay wadannimo Soomaaliland iyo maxaa ku raahdaa sharci Soomaaliland hayna halka ma kasta airport ka qaar baa laga celiyaa waxa weeye qofkii aan Soomaaliland hayn ee Soomaaliya waa arkay wana Soomaaliya wanaagii xurub nuuray laakiin Soomaaliya ma marka cidii nabadgeliyo iyo horumar iyo iskaashi nagala shaqeysa waa soo dhawaada walaalay laakiin qofkii dhibaatana uu abuuraya waa ka saaraya dalka laakiin waqti dadka ku jiray waxaa loo maleeyay oo lagu soo xaqiijiyay inay jiraan ay ku jiraan hawlo ammaan darro ah oo dalka ay ku saabsan oo soo taray magaalada Laascaanood dhowr iyo 80 qof oo dadka ugu muddo u badan Laascaanood sarkaal leh suldaan leh jadj leh dumar ay lagu diray wixii dibleesha marka loo fiiriyay waxay ku dhex milmeen suuqa abuurma halka ku yaal dadka dabcan badankooda dambiilaal madaxay ma yahay dad badan oo saakin ku jira iska shaqeynaya laakiin waxay noqotay in la yiraahdo meesha aanu kala galano waxay noqotay meel la yiraahdo dambiilo dhow ku dhunta marka sabab abni ayaa loo raray lama xumayn waqti ma u baahnaa ay ku diyaar garoobaan waa lama xumayn idaacadaha iyo boonbooninta qolada Soomaaliland maxay dawlad u noqotay aan ictiraafsanay oo dal kamid ah ayaa akhriyeysay kuwana warkooda noo dhibo oo waanu is ognahay wagaag haddana soo gudbo dhinaca doorashooyinka Soomaaliland gudaheeda bisha November waxa qorshaysan doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay dhacdo doorashada iyo qorshaheeda iyo qabsoomideeda haddaan ku weydiiyo maxay ka meel yaal horta doorashada waa sharci oo waqtiga midisay haddii force uu jiro yimaadana xal qaran laga gaara oo wax ka soo qorshayso waxa ka hor iman kara xaalad ka buuq waxaan ugu soo qoray laba doorasho saaran laba doorasho sharci ismu saarinay doorasho waqtigaas soo saaray xisbiyadu waxay dhamaanayaan oo leeyahay ka dhacaya December doorashada xawir waxay taagan tahay 13 muddoodu 10 sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo la xisbiyada la qorsheeyay laakiin duruufihii doorashooyinka ayaa isku soo beegmay
oo doorashadii oga dhigtay ee lasoo kala raray ee baarlamaanka la saaray ayaa taanka wax ka bedeshay marka sida sharci u dhigaya loo raacaya iminka juun waxaa la furayaa ururadii waa la furaya waa tartamaya haddii markaa doorashadii markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxaa ay tartamayaan iyo ay madaxweyne isku dhawaato haddii awood dhaqaale iyo farsamo loo helan marba mid waqtigeeda la geli haddii la waayana go-aan qaran baa laga gaari marka laga yaabaa maadaama mucaaridkuna ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horeynteeda inaad kulantaan oo wadatashi ka samaysaan si arrimaha go-aan aad uga gaadhaan wixii Soomaaliya uga gaadho waa laga watashadaa sharcigu ma lagu xaliyo war waxaan nala soo gudboonada maxaa nu yaala doorashooyinkan wuxuu jooga la qabtaa labada waa la isla ogolyahay way soo gaareen hawl ma laha iminka waxaan bilaabaynaa oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda la tii xisbiyada ururada waa la bilaabaya hadday ururada horteed dhammaanayaan hadday dawladda dhammaanayaan waa caadi saddex xisbiya la rabaa inay soo baxaan marka ururada tartamaan marka labada isku soo dhawaaday iyadana xal baa loo heli doonaa aan qaran oo aan dhibaato lahayn waagag wadahadallada somalilan iyo soomaaliya in muddo ay socdeen waxyaaba la taaban karana badankooda xilliyo kala duwan bay hakad galeen xaggee wax ka qaldamiyeen halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahayd sartu waxay ka qurantay dadka imka xamar ka taliya wadahadal Soomaaliya ma doonayaan waayo waxa arkaan inay wax walba haystaan oo waa la ixtiraafay iyaga dawladda baa la yidhi marka waxay rabaan ba inay ahaan dee annaga dawladda soo raaca dee iskaashi dawladda taa ixtiraafkii annaga ixtiraaf doonayna haddaynu marka hore laba dawladood ahaa inuu isu yimid oo Soomaaliya la isku oogtay haddaynu dunno anagu saacadaan dhisnay hadday qoladii international qolada dawladaha caalamka waa wariye ka siiyeen anaguna kayga annaga doonaan kalaamaan laano ay horta shaqada ku dhuntay marka haddii la leeyahay hadla idinka isku dawladahay inay deegar qaataan baa wala nin madax xawar joogo la meel maqashay laba dawladood suud baan ahay wama marka la soo adana gool baa waxa tiin maxaad u kala goynaysaa ma kala goyn kartaan annaga xukuumadda ka bilaaba taas ka watan dacwadooda iyagu halkooda ha taagnaada annaga laga rabaa Soomaaliland inuu adduunkana ku qanacnaa ictiraaf inaguna ismuujino dad dawladda oo adduunku u baahan yahay wax qabsanayna waa intaas maxay naga yaala wanaag waxay dhahan waryaarahay laba dawlad baan hadii aynu doono safkaro weyn maxaanu yaala dee diido ka dhagaadkaaday deena wana ka dhagalaan warkooda iyagu diido Soomaaliya inaba ka dhagalaan marka haddii wadahadaladii dib u bilaabmaan tusaalahaan oo kale xukuumaddan muddo imika xukuumaddan Soomaaliya joogta dhowr jeer baydaa wax isla fahmi weydeen kulan mar Djibouti waad ku yeelateen haddii wax isbedelaan oo ama Soomaaliya inteedii ka soo dhawaatay Somaliland maxaa ka diyaaran ma sii wadaysaa horta Soomaaliya waxay rabtaa wax kastoo jiray oo hadal ku dhumayso laakiin dadka waa hadal waa inuu isaguna hadal diyaar yahay qof aan yuhubo hadal u haynin marka anaba ay muuqata anaa ku xukuma oo la israaf ee waxa uu dhahan jiray dad isku doorahay dees nasiimayno marka inaga qoladaas dadka ma sheego ma hayn badan ma sheega aanu sheego wax ma saaro iyaga dhibano gurmadu baahan laakiin inta xamar ka talisaa iska dhagaraada